dhibaatooyinka adduunyadu kama tarjumaan inaad tahay qof Ilaahay ka fogaaday, balse waaba sidaa cagsigeed oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu imtixaanaa qofka uu jecel yahay. Nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu ku jeclaado wuu ku imtixaanaa, qofka imtixaanka ku raali noqdana waxaa u sugnaaday raali ahaansho, qofka imtixaanka ka caroodana waxaa u sugnaaday caro. nacuudu billaah. sidaa darteed Allah wuu imtixaanaa addoommadiisa xikmado dhowr ah awgood. mararka qaarkood waxaa lagu imtixaanayaa si aad u dareentid nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey balse aad moogan tahay. mar kalena waxaa lagu imtixaanayaa si Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu baraarujiyo gafaf ka dhacay awgood. mar kalena waxaa addoonka loo imtixaanayaa si Allah uga masaxo addoonkiisa gafaf hore uusan weli ka toobadkeenin. mar kale waxaa addoonka loo imtixaanaa si darajaadkiisa loo saraysiiyo. laga yaabaa darajo aadan ku gaarin cibaadadaada in Ilaahay ku imtixaano si aad ugu guulaysatid darajada aad ku saraysaa. haddaba siduu Ilaahay kuu qorsheeyo ku raali noqo mar kasta. imtixaan walba oo kaa hor yimaadana ku masax samirka iyo salaada, iyada ugu wanaagsan wax waliba.